فجرida ka mid ah ayaa waxaan ku tukaday masaajidada Nairobi ka mid ah qiso igu soo martay majaalis quraan ka sheekay qisadu waxay ahayd gabar 35 jir ah oo ilmo haysato ninkeedana masaajidka safka hore ku tukanayo ayaa waxaan ku yiri akhri faatixada عادة dadka gabdhaha quraanka aan saaro ay imaado faatixada aayat kursiga khawaatim suurat al-baqara shanta aayad al-baqara u horeyso barab al-falaq barab an-nas qul wal intaasan isku daya inaan ka saxo ama inaan ka jeegreeyo badana dumarku aayat kursi markay akhrinayaan wala ya'udhu ay akhriyaan wala ya'udhu dhal ذهن معهن والدال ولا يؤده حفظهما marka gabadhii markaan akhri waxaan ku iri akhri suurat al-fatiha wa akhri wis misaadkan ka sheego marqasadii inta qofka magaciisa lama sheego laakiin qisa ahaan oo soo wariyay nin kamid ahaa oo misaadka ku tukaday oo qisadii aan sheegay oo dardaarankan u dhiibay buu wuxuu sameeyay guriga markuu tagay in islaantiisa faatixada weydiiyo tiib way ka darantahay ayadana kadib majaalis quraan igu yimid oo ii bishaariyay wuxuu igu yiri habeen aad kalimaan oo jeedinaysa maxasuusataa masaajidka qisano sheegaysa ha anigu waan aaday guriga waxaan jeegariyay xaaskayga ma magaranayso la faatixa intaas muddo islaan noolna waa dumarka anaka muhiimadeena gaarka ah oo loo guursaday inay wax noo dhasho in ku adeegto hawlahaas kaliya ka fiirsana looma fikiro aakhiradeedii waayo salaaxa hooyada oo ilmaha salaaxooda ku jiro gabadhay toosan tahay oo quraanka ilaahay ku xiran tahay guriga dib la'aan iyo buuq la'aan oo ahaana limaada qalbigeeda waxa safaynayo safgareynayo ama safaynayo kalaamullaahi tabaaraka wa ta'ala ويبهنو سنتهيبا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى مركا قف بركيسان نقونيسا مركا قرآن كأخرسانيس مركا الله ولا ليال دو مركا ويذو المسيحين أمور الدنيا iyo maslaxada khaaska laga fiirsada tooda lama fiiriyo aakhirada inay badbaado oo quraankeeda ay isku ilaaliso shaydaanka iskaga ilaaliso صلاة إني توستو وحاسل ما فكره إلا ما رحم ربي مرك إن شاء الله تعالى عند ذلك بارك الله فيكم مرك وحنا اسكسحينا إن شاء الله تعالى سورة الفاتحة تاسمه قابسنا نعمانت إن شاء الله بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله نوفع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.